dhismaha wadada isku xidha Degmooyinka Balidhiig, Qoryaale iyo Warcibraan oo muddooyinkii u dambeeyay dhismaheedu ka socday deegaanadaasi ayaa waxa la soo gaarsiiyay degmada Warcibraan oo ka tirsan gobolka Togdheer. Gudoomiyaasha Degmooyinka Warcibraan, Qoryaale iyo Balidhiig iyo cuqaasha waxgaradka ee xildhibaanada ka soo jeeda degmooyinkaasi ayaa ka warramay dhismaha wadadani oo iska wax u qabso lagu soo dhisay. Waxaan isugu nimi halkan ee bacadkan aanu tubanahay ee hawshan u wadnaa waxa weeye wadada laga soo bilaabay Balidhiig halkaana Qoryaale la geynayo iyadoo degmooyinkii Qoryaale iyo Balidhiig iyo Warcibraan iyo tuulooyinkii intii kaleba ay iminka halkan tuba yihiin. waa dawladeeni annaga ballan qaadayna inaynu ka helo halkan waxaan baaq uga jeedinayaa dadku wuu badan yahay oo aan baaq uga jeedinayaa ummadda wadadani ay kulmiso qurbajoog iyo qulquljoogba baaq baan u jeedinayaa gaar ahaan waxaan baaqa u jeedinayaa gobolka Togdheer dadka jooga hadday tahay sulaadiinta iyo hadday tahay xildhibaanada golaha deegaanka wadadani ay marto deegaamadooda waxaan aad ugu mahadnaqaynaa degmadii soo abaabushay ee maamulkeedii nala joogo ee reer Balidhiig aadan saalax diiriye kow ka yahay ee u hindisay wadadaas bilowgeeda leh ilaahay khayrka ku bilaabay ilaa qiyaama ilaahay kugu wadaraan la saluuqniyo degmooyin aad u wanaagsan oo waafiyo la yaqaan oo waligood baxsanaa oo dawladooda wanaajada wax taray baanu nahay fiican ee quruxda badan leh ee aanu saaka wadadii u soo raacnay waxaan leeyahay dawladda sharafta leh qurbajooga culimada codkarka haweenka waxaan leeyahay wadada laga qayb qaato golaha deegaanka ee Burco anigoo ka wakiila waxaan ku ballan qaadaynaa qaybteeda inaanu qaadano waliba qayb libax qaadano shakhsiyan anigu imika halkan waxaan kaga baaqaya horta isku rogo aan gaar u leeyahay inaan keeno oo carruurta ay bilowdo ta ugu horeysa ay bilowdo ay noqoto insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo muhiimaddu waxa weeye in kullay haddii qofku uu la yimaado karti ilaahayna wuu taakulaynayaa xukuumad iyo cid kastaana waa taakulaynaysaa. Khaliil Barrawraan TV qaranka Soomaaliland magaalada Burco.